taliyaha guud ee ciidamada Booliiska Soomaaliland Sarreeye Guute Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa maanta hortagay gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland isagoo gudida uga xog waramay xaaladda guud ee amniga Soomaaliland isagoo si weyn uga hadlay xaaladda guud ee caasimadda Hargeysa iyadoo gudiduna halkaas su'aalo ku weydiiyeen Cabdullaahi Fadal Iimaan oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu risaatan inaanu ogaano hordheel kasta oo ku soo kordha magaalada waa shaqadayada inaan la socono hadduu mid weyn yahay iyo hadduu mid yar yahay haddii mid magaalada hareeraheeda laga sameeyay ama gobolada laga sameeyay yahay hadduu yahay mid caasimadan oo fidaysa laga sameeyay ciidanka booliisku hordheel kasta oo soo kordha waana u diiwaan gashay waana ka warhaya sometimes marka qaadkoodna hawlgal bay ka fuliyaan iyagoo kaashanaya waaxda socdaalka Soomaaliland iyo iyagoo gaaraba inta kale waxaan filayaa inaan in badan bulshada anigoo ammaan uga soo jeedinaysa nolol shaqeeyaan waxa kale oo jira imanka haddaan kuu sheego oo kale wiiganoo kaliya jigjiga yar maxaan ku dhahaa xaafadda Teedwan May maxaan ku dhahaa Axmed Dhagax maxaan ku dhahaa Gacan Libaax soo iyo meelo waxa kale oo badanba waxaanu ka sameynay wacyigelin ilaa farxaan aad u maatayay warta shaqada booliisku hawsha booliisku waa ka hortagay ka dabatay waxa la yiraahdaa batuuli xagaas laga isticmaalmayne waxa la yiraahdaa gaafureega afkeenii bay isticmaalayno gaafureega ama ilaalinta nabadgelyada mudana way galaan kulay checkpointyo badan in xildhibaanada qaarkood ka arkeen baa laga yaabaa iyagoo wado xal ugu dambeysay waxa kale oo inta noo dheer waxa wareega gaadiid kale oo ciidan saaray oo dharcad iyo qaar bisla saaray waxa kale oo wareega oo tootooyin waxa kale oo wareega sida aad aragteen baabuur laan guusar ciidan saaray waxa soo dhameeyay waxay ka turjumaysaa ilaalinta nabadgelyada sometimes waxa kale oo aan qaadnaa olole weyn oo ballaaran oo marka cidii wax sameynaysa lagu qabto marka mustaqbalkan waxa noo qorshaysan in waliba halkay maraso imanka aanu ka sii xoojino oo sii badino hadii la hayraado Ismaaciil Cabdi Yaxya telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.